mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco taliyaha qaybta booliiska gobolkani Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id si wada jir ugu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer. Shirkani jaraa'id ay ku gorfeynayaan ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu ayaa waxa ay dhamaantood babaaq u direen salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan gobolkani Togdheer, taas ay ugu baaqeen inay ilaashadaan nabadgelyadooda isla mar ahaantaana ay ka warhayaan ubadkooda si aanay falal amni darro uga fulin gobolkani Togdheer. ugu horeyntiiba waxaa shirkani jaraa'id ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle, taliyaha qaybta booliiska gobolkani Togdheer, waxaanay dhamaantoodba carabka ku dhufteen in la iska kaashado sidii looga qayb qaadan lahaa nabadgelyada gobolkani Togdheer. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa oo cid alaale cid kasta oo maartay aqoontooda ku filan tahay ay garanayso in amnigu yahay shay loo wada baahan waxa nagana degmadana iyo gobolkeena ka caan inay waalidiintu ka warhayaan dhalinyarada ardayda oo waliba waqtiyada habeenadii ay ka warhayaan mararka qaarkood waxaa suurtagal in taliyihii amniga gobolka jooga in la soo wargelinayo halka dhalinyarada taagtaagnay ama halka dhalinyarada isku buuqay waa suurtagal in la soo wargeliyo. waxaan leenahay odayaasha iyo waalidiinta iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo dhammaan dadweynaha reer Togdheer waa inay amniga ka shaqeeyaan. odayga magaalada iyo taliyaha amniga in waalidku ilmihiisa ilaaliyo oo laga ilaaliyo goobta xun ee soconayaan goobta qaranka waa daayirta in mustaqbalkeeda la ilaaliyo habooda jira loo ilaaliyo waalidku ka qayb qaato laga digtoonaado shirshirka carruurta iyo wadka aad ayaa runtii taageeray gobolku ay maalmahan ololo badan ku jiraan oo ka shaqeynayna magaalada afartii inay meel wada joogo waan qabanayna anagu markuu waalidiinta waxaan u sheegaynaa inay dhalinyartoodaas meelaha isku warsanayaan ninku inuu ama iskuul ku jiro ama gurigiisa joogo wax ka dhaxeeyo jira inama ayaa farafta u istaagay gidaarada oo ma qabanay waxaan wadigeena waalidiinta inay carruurtooda ay ka warhayaan. ugu dambeyntii waxaa shirkani jaraa'id ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diin, isagoo gudoomiyuhu arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya waxa uu yiri waxaanihii kaabaanadii soo fiisnaa ee laga dhigtay qalabka midii laga dhigtay baarkiisa inta la leeyahay waa daayir wax la soo qaaday maxaas daayirta waxa soo fiisanaysa ee halka la ku haysta cidda ka daba timaada ka aqbali maayo xaq shidaan marka hore ugu dadkooda ninaan ku aqbalayna ma jirto amniga u direeyeen la fahooga u direeyeen dalka u direeyeen oo qoyskooga u direeyeen ninaan nafayaan jira noocaas hadday arday yihiin iyo hadday suuq joog yihiin cidda ka daba timaada ka aqbali mayno waan ka tashanaa go'aan waan ku gaadhay taa lagu talagalo. qodobka labaad waxa weeye hay-adaha hadday tahay kuwa localka ah iyo kuwa internationalka ah seminaar aanaan ogeyn oo dalka gobolkaa ka dhici karaa ma jiro. waxaan arkayay hudheelada ka mida Burco habeen dhaweyd lagu qabanayay seminaar hay-adii qabatayna waa ka daba tegaynaa tallaabaan ka qaadayna oo Soomaali u qabatay seminaar waa Sanaag iyo Sool iyo Mudug iyo dee Muqdisho way noqonaysaa inay korkay mid ku jirtay ka aqbali mayno hay-adaha seminaar halkan ku qabata oo Soomaali weyn ku qabata ka aqbali mayno. وبرواقة آدم محمد شبكة عالمية أودوين نيوز مقالة برعو.